barnaamijkeenan xogaha daasoon waxaynu daha kaga qaadaynaa qaabkii ay kuuriya xabsiyadooda ugu dileen 1,000 askari oo Mareykan ah iyagoo aan ku ridin xitaa xabad rasaasa. xilligii uu dhamaaday dagaalkii kuuriya iyo Mareykanka ee bartamihii qarniga dhaafay ayaa generaalka Mareykanka ee William Mayer oo ahaa dhakhtar dhanka cilmi nafsiga ah oo la shaqeeyay militariga Mareykanku waxa uu daraasad ka sameeyay mid ka mid ah qisooyinka mahadhada reebay ee taariikhda colaadihii dunida soo maray. dagaalka kuuriya iyo Mareykanka waxa maxbuus ahaan loo qabtay in ka badan 1,000 askari oo Mareykan ah waxaana la isku geeyay xabsi ay u dhameystiran yihiin dhammaan adeegyadii lagu yaqaanay jeelasha maxaabiista dagaalka waana jeelka ay u dhameystirnaayeen adeegyada ay qawaaniinta caalamiga oo gashay in loo diyaariyo maxbuuska nooca waana xitaa jeelka mararka qaarkood ay suuragalka u ahayd in laga baxsan karo waana jeelka aanay haba yaraatay ka jirin falalka jirdilka ee xabsiyada kale laga soo sheegayay sidaas oo ay tahay haddana waxa jeelkaasi ahaa kii ugu badnaa ay maxaabiistu ku dhiman jireen iyadoo sababta dhimashadoodu ahayd mid dabiici ah oo ay dhacaysay in maxbuusku habeenkii nabadqabku seexdo laakiin aanu subaxii soo toosin. daraasadan oo socotay muddo sanada ayaa General Mayer waxa uu ugu dambeyntii soo saaray warbixino muujinayay natiijada daraasadaasi laga gaadhay waxaana ka mid ahaa in maxaabiista loo ogolaa inay maqlaan oo kaliya fariimaha xun ee qoysaskoodii iyo wadankoodii uga yimaada iyadoo wixii warar ah ee wanaagsan laga qarin jiray waxaana la aam jiray maxaabiistu inay ka sheekeeyaan xusuusahoodii ku saabsanaa waxyaabihii xumaa ee ay soo mareen sida cid ay khiyaameeyeen oo kale iyadoo sidoo kalena laga dalban jiray inay maxaabiistaasi dhexdooda isbasaasaan maxbuus kasta oo maxbuus kale warka keenana abaalmarin loo siinayay sigaar u cabo waana arrimaha dilay dareenkii maxaabiistaasi dabeetana ku dhiirigeliyay inay isbasaasaan waana arrimaha hoos u dhigay nafsadii nololeed ee askartaasi darajo gaarsiisan heerka dhimashada kuwaasoo nacay noloshooda iyadoo maqalka fariimaha xunxunna ku sababay inay rajo dhigaan oo ka quustaan in xabsiga laga sii dayn doono iyadoo basaasida dhexdoodana keentay inay isu arkaan inay waalan yihiin oo wax u dhiman yihiin waana dariiqooyinka gaarsiiyey inay u wada dhintaan qaab aamusnaana oo aan la cadayn karin sababta ay u dhinteen askartaasi.